hadda waxa u jeeda waxa la Bueno oo kale next week waxa laga yaabaa in kooxda u raaco waa hadii Manchester ay ku daraan 10 milyan oo farqiga labada kooxood marka Manchester laakiin marka hore waa in isla maanta ay iibiyaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Sancho oo la sheegay in heshiiska shakhsiga Juve isku afgarteen farqiga labada kooxood 5 milyan uu yahay marka intaadan wax soo iibsan wax iibi ay hadda sharciyada Manchester u yaala qodobka sidoo lagu hortagi karaa ila Rashford hadda kulli option Barcelona way Sancho Nicky Antony iyo Garnacho kulli bixituli iyo transfer ma saaran aad waa sida sheegtay Manchester caqabad waxa ku horta ciyaartooyda kooxda joogan ay iska xaliyaan sababta hada lacag gashido ciyaartooy keentid kuwan aadan ogeyn in laga gadanayo hadda ganaaxi kooxda ku dhici karta marka waa in tilaabo walba ay qaadayaan noqoto mid taxadir ku dhahan oo ay horta ka fikiraan suurtagalnimada kuwan loo diri karo hadda Sancho kala ay fasaxaan oo 25 milyan oo lacagta euro ay keenaan Juventus 5 milyan kooxda hadda kaga soo dhacaysa Anthony Elanga oo ku biiray kooxda Newcastle Man United la hanjirta Forest 5 milyan booni kaga gateen adii 5 milyan ilaa 2 milyan meelaha ku soo aadis marka waxa isleeyahay farqiga ilaa Mbeumo meesha lagu kabi karaa marka Mbeumo iyo xaray waa haynaawo 5 milyan Elanga laga helayo lagu kabaya laakiin Sancho oo 60 iyo 55 milyan laga bixiyay Newcastle 5 milyan booni ka helayaan marka 5 milyan Manchester ma kaga dareyso ismarilah iyo qadama ahanbo Brentford ismarilah in Mbeumo lacagtiisa loo dhameystiro 5 at least waa lagu kabaya isleeyahay ciyaartooydan kale tan xal waa in loo helo markii kuwan la diray kadib le kooxda ee tilaabo kala qaadi kartaa safiican armiga Arsenal waxa Arsenal waa u shaqeeyaa qasab waa in ugu horeeya Arsenal waa bis waa maxuu miiga baahno hada giya karosi wax dhan dhameeyna in la keenay la dhimamahan hada baal goob ku jirno laakiin nimanka Manchester lacag la maadaama ay hayso saddex weeraryahan oo haya inta hada qadayna oo raqiis miya oo inta qadayna in ku sheegaaro waa isheli waana ma wali free waxa taa lacag ma laga rabo safiican oo contractu waa dhacay ciyaartooy ku xalaan waay Vardy ya soo wadaa waa Jamie Vardy ninkii ahaa Colin Wilson oo shalay barnaamijkan ku soo Newcastle iyo sidoo kale ciyaaryahankii Everton Calvert-Lewin saddex Ingiriis waa mid qaata Manchester aniga waxaan isleeyahay experience dir loo lacag aad sheegay lacag meesha ma taala maadaama free ay yihiin experience loo qaadanayo Jamie Vardy asoo hadda uu dhalinay laakiin hadii loo dacyaraan iyo jooga iyo madaxa kubada laga dhaliyo Calvert-Lewin aan u doora lahaa kulli da'da 30 kan uu ka yahay Premier League-na Everton ninkaas dhaliyaa way dambe ka jiifatay oo xogaa leen iyo dhaawacyadii waxa saameeyay mooyee Calvert-Lewin aad ugu haboon yahay kooxda Manchester waliba aniga waxaan dhigi karaa Man United back up ahaan ha ugu faa'iideystaan asagana ma diidi karaba koox weyn oo Manchester nooceeda kala way dadka inuu helaba si fiican laga soo dalbada marka kulli waxaan leeyahay muhiim waa sheekooyinka Arsenal la galay markaas ninkii Cristiano Ronaldo la soo bandhigay inta barnaamijkeena uu socdo ama galinka dambe la soo bandhigaa ciyaaraha 30 jirka ahay 3 sano contract kooxda ka qaatay adii 80 kun baan ilaa 100 kun qaadana lacagtii baartay 150 kun kamid waa la save gareeyay ninkan waa nin ku qanacsan inuu Arsenal u ciyaaro projectiga qaybkan hadda line ama noqonayo for sure sababta Zubimendi iyo Declan Rice iyo Martin Odegaard qadkaas dhaxeystaan laakiin ciyaaryahankaas oo kale way arag inuu ku fadhiyo oo hatta marka qaar 60 daqiiqo kadib keeni kartid good addition waan qabaa marka kulli galinka damaanta la soo bandhigaa Norgard Arteta waxyaabaha aadka lagu dhaleeceynaya waxa kamid ah dhamaan saddexda koob ee gudaha laga ciyaaro iyo Champions League isku ciyaartooy soo safaa Champions League FA Cup Carling Cup iyo horyaalka maadaama ciyaartooyda inay nastaan u baahan yihiin oo 70 game 64 kulan dheeray seasonka ciyaartooyda inay ku nasto ku fiican yihiin tusaale ahaan sabdiya horyaal dheeshay talaada Champions League dheeray usbuuc soo socda FA Cup Carling Cup marka Bukayo Saka le ma wade waxyaabaha ciyaartooyda injury-ga dheer u keenayo hadda Saka mar dhaawacmay December ilaa iyo Febraayo maqnaa Odegaard dhaawacmay muddo maqnaa ciyaartooyga marka dhaawacaas nasiino u arkaa ciyaartooyga hadda maanta dhaxdo maanta kulan weyn kulan iska fowda jiro iska naso oo manikaan kale waa lagu fakan karaa marka Arteta waxa leeyahay wuxuu 5 sano ku fahmi waayay oo hadda fahmay marka documenti waa la kala qaatay ninkan 10 milyan boonana Arsenal ku soo qaateen heshiiskaas waa dhacay waa lagu kala baxay si fiican waliba hadda waxa u jeedaa akhbaarta gool.com ay qorayso maanta hadalkii macnaha face to face ayaa loo wada kulmayaan nimankii Sport Lisbon iyo Arsenal wakiilada ninkii Batra ah Lisbon jooga iyo wakiilada ciyaaryahanka iyo kuwa kooxda ka socdaba marka saddex geesooda jirto arintan marka CN ka kala Portugal wuxuu leeyahay arintu isku dhamaatay macnaha in hore loo qaaday bas ayaa dhima marka jaanta waa la isla qaaday ninkan amray dhacdahay ninkan ما كشكين بليل لينكي كوه كلا نمر بيو شارع كشكين إن حوله حليه سكتجوا هذه يلعب مشاركة كتجوا حلوة بارتمية سودوا إنفورميشن كنسي وبارين قبل برا ما وشك وشكي وصوت ضبعي حتى معنا قبل الموضوع واي أفترض واي معناها ما قلت جرتي حافظة وحجر جرمت إلما بتاع وشلقة
macnaha sacuudiga iyo laga beeli jiray ilmaha waxa dhigi jiray ilaahay u baahan waagi la dhigi jiray baliilo mareykanka la aqoon sacuudiga la aajire hadaaba joogta caadi markaas digreena maqashisa marka ilmaha dhigi jiray ilaahay u baahan yahay hadda gabadha ilaahay rabbigeeda la u baahan tahay mooyee waxanaha waa u fadhisaa gabar filmaan jisho aktarad ah model ah celebrity ah waxa yiri moota reer karbad gaalada ay dhahaan oo dhiga inta bareefajada leedahay marka macalinka ma aqaan marka Arsenal darteed hadii loo soo xigtay Lisbon hawadeeda jeclaa wuxuu yiri ma jeclid maho aan London jeclaa mi gool noolaaday fasaxay hor u soco marka waa kaasa in badan haddaan fiiriyo qodob waxaan u jeedaa nimankii Napoli ah oo sameeyeen waa ku xumeeyaan Galatasaray waxay soo bandhigeen 60 milyan oo lacagta euro miiska soo saareen farqiga 15 waa laga diiday sababtoo shalay waxa la adiga baa Hilal oo la imaado 75 milyan oo euro ayaa naga diiday Galatasaray lacagta soo dhameystiran la asigana aad u kaga xumaado wuxuu rajeenayay maadaama hadda aysan jirin koox kale oo ninkan rabto in Galatasaray waa wallahi leeshiyeen 3 sano contract ka qaatay waa lagu adkeeyay ka waran marka in nimankan Talyaaniga ay markooda ku adkeenayaan horta Talyaani ama xanaaqan Galatasaray Talyaani waxay ku fiican yihiin markaad gurigooda gasho way ku marti soorayaan laakiin markaad daaqada ka imaato kooxaha Talyaaniga wax kala qaata fiiri ciyaaryahan 30 iyo 40 qaatay dhif iyo naadir waay laakiin tusaale ahaan hadda waxaan arkayay ninkii Dumfries ah inkastoo shakada inay ka baxsan tahay heshiiskiisii waxa ku jirtay 15 July kooxaha dalka Talyaaniga ma qosayso kooxaha dibadda bisa ku gadan kara 20 milyan release kalooskiisa gudaha dalka Talyaaniga macnaha ma inay ka jiib yartahay macquula ama xitaa inay ka badan tahay laakiin ninkan hadda Victor Osimhen korta kooxda Napoli laftigiisa si wanaag uu matagooday wax naxariis u dhex yaala malaha wajiga iyo wanaagii shalay u yaalay labada dhinacba waa uu gubtay marka waxaan qabaa in sidoo ninka ugu adkeeyo kooxda ninkan asoo ma aqaan Francisco inuu ka yimid jeclahay ninkan waxay ka dhigeen min world class player aad iyo si fiican qaado Real oo qaadi way isku faa'iideen waxay marka inuu wanaag uu kooxdan ugu tago hadda marka ma aqaan kulay ninkan Aurelio De Laurentiis nimayl adag waay qarashad badan hadda ka baxay wuxuu marka 75 kan lacagta in loo soo celiyaa raba marka ma u maleynayo ninkan in hadda dheel xitaa 1 milyan uma cafin doon hadii hadda dheel ninkan uu ku dhacoyaaba oo ninkan xilliga tababarka la soo laabanay 15 tababarka bilaabayaan bariisiisan ka bilaaban doona marka كل حقي وليه ما كان أقول جراسران إذا ما أنت أباهي قبتني كان ساشر نوش يكتبه جنب ليجي ديلي ريال كيني ما كان مورينو وسوبي واضح العاقة أو عندنا سبونسر شيب يعني هلين هلين مورينو وسوبي هذا دوران يركب بدنا قاعد صوت قصبة سومر كان إسكيرير بيا وسيا ما أنت برامج كوجر رمي هذا ألكس سانجيز سي قادنا يا رسي كسبريا سان مورينو قولها إيان سومر الغالب وجدان إيو ينكي ماك أندر ترستاج متى جلستها هيري كلام إن عكلا دنك في الملهي كلام جوسي هوريال كتركي يحيسو وياله صفي عيارتي سووس أردو يابا صفي عيارتي سديتي من لو قطي لما كان جلسرا ما جيفان جلسرا ماشي وعكتها سيدي ما سيت أوكله وايو شركة جوجل وين سبونسر كاين كم مدائين واستقبال الكود اللي سين هذا الواحد مدائن أي آدي المركلة فيري أي وفي عينين نكى وحوجي القضاء بحال كل إن لبدي هبي نمية نكى تاريستيجنا نكى واحد نيو أنا روحنا نائمات وأنا وأنا بالك أسكت وقايا ميل مريسي لا بس أنا قندراس يعني سي ما عدا نكى تاريستيجنا شو حبوه شسن إنك اللي سي شسن اللي سي عادي ومقتابة ترستيجن هذا ما أنت ورا صباح وما دام على اللي سي إنك شسن قندراس كلنا بس اللي سي أسمى ما أنتوا هل ما بحاي ولا ترستيجن لعقتي ذا الرباب تاجين يعني ما هو بحاي وأسكت جوجا هداربتين كوحة لماسي ودرا لكن أنا ملء من السعودي هدام بحاي أنا هذا كوح لعقتي أنت كقاد مدل من السينس سومو دك حماس إنه تباشا ودقال عادي واي نكان رتك كنترتجي سي مر باشا وحالي نتاي قرت مرة كجاريس إلها كجاريس هذا مرة هين تريستيجر مركو ضاوعمي كوحد أسامر مركز أبانا لكن هدين الباقة أو ماضي نكيا كفي عناد هسه في لك وحياة كو أمانة وحيتاي نكي وشغل سيسي لكن وحود دين تريستيجر أنا نكي بقى مود الدنيا كل هيك لا يقولوا كنتن معنا وإلا كتشتوى وإنك إنجري وقري دريس إنجري وقري كلا وده أبليس الوصيب تذكر الشيء اللي بتبني لك وهلا الجراية في عنه توصل كل عيارك مركب برشلونة إذا كوسعن 20 مليون يورو كقاطع كوحدة بسم الله وعفي ما يمرك ما waxa uu cafina ma laha asigana waxa laga mustaqbal laan ku dhacdo hadii kooxda labaad ee lagu daro kale waxa laga yaabaa inuu waayo Jarmalku oo gool haykood noqon lahaa halka Janis ugu dambeeyo sababta World Cup kale ma ciyaari karabo maadaama Neuer ciyaaraha ka fariistay xogaa marka waxa isla ninka caadifada haysan laakiin xal wala heli doona at least kooxda ku xumeena dhankayga waxa u jeedaa ciyaaraanka lagu magacaabo Thierry Bari ayaa soo qaateen Everton oo weeraryahan Faransiis oo Villarreal ciyaaro hadda tijaabo caafimaad oo maraysa
BBC da daabacayso 27 milyan oo pound ku soo qaateen ama 35 milyan oo euro ciyaaryahankan wuxuu kamid yahay kuwa ugu bandhiga fiicnaa Falreal xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaado 22 jir 11 gool shabaqa gaarsiiyay 4 caawin sameeyay 38 kulan horyaalkan uu ciyaaray kaalin shanaad ay ku dhameysteen kooxda Champions League waa ninkaas nifid waa shaqaystay ninkaas waa nin madow ahaa waliba Afrikaan laakiin Faransiis waaye wuxuu ka imaaday dhankaasi Faransiiska kooxda Sochaux ku imaaday asigoo 19 jir ah Belgium ku aad koox lagu magacaabo Beveren kadibna Switzerland ka sii dhacay Basel aaday asoo yar intaas sii maray kadibna wuxuu imaaday gudaha Spain Villarreal Agosto 2024 ku soo qaateen ninkan 13 milyan oo pound haddana 27 ku gadeen waliba ilaa 34 milyan wala cayaar gadaal laga siin doono marka faa'iido badan waa ka sameeyeen Champions League wuu keenay asaga khibrad fiican ay u tahay wareegaas faraha badan waxa uu jeedaa ninkii Musa Kiin ahaa waatay nimankii Saudi Arabia Fiorentina asaga diiday Milan mar rabtay inana xogaa 52 milyan ku weynaatay hadda waxa leeyahay Manchester diyaar u ah waliba release kalooskiisa waa ilaa 15 July waa ku tilmaamina bis lagu heli karaa Manchester waxay taageereen Mbappe hadii lagu adkeey ma dhinacaas fiirino معقول متى مانشستر حق وجيسن هذا وجد ترانسفير عدبنا وعلنا مانشستر صدق انه فريق مid qaata dhahna way nimanka Manchester lacagta haystaan Mbappe ku qaadanayaan waa sax kiin hadda Talyaaniga fursad jirta waxay tahay ilaa 15 bishan wuxuu kamid yahay ciyaartooyda release kalooskooda la jibin karo laakiin ma filay ani 52 milyan oo euro Manchester ka bixinay Musa Kiin waa hadii iska dhaafaan Mbappe markaas waa macquul isla at least kiin ma xumo nin oo level wariyahan oo world class ilma ahna aadiya laakiin kiin ma xumo qatar waa sadafal isku ciyaar بياريسو إيفرتون ما صور يوفنتوس soo fiican oo ka tagay macnaha macalinka isku dhaceen kadib waxa ka faa'iideysteen Fiorentina marka Manchester Mbappe ma qaataan hadii la horeeyay noobal aan u dhamaa سفيان بارمونيك وحليها وحنا وانكي ها ريناتي فييغا وجالسي ها وكميد هدور عيارتي وجالسي سوق horta balila ninkaas waxa waa nin mustaqbal la waa sababta number 6 u ciyaari kara laba difaac dhex u dheli kara garab u dheli kara kaliya wuxuu u baahan yahay koox oo stable oo bossiisa Bayern oo kale aad u anfaca haduu ku biiro waliba meeshaas horumar ku sameyn kara Bayern waa kooxda typically ciyaartooyda markay qaataan Janis siiyaan pressure-ka ilaaliyaan meesha ku haboon yahay soo saarista ciyaartooyda Bayern aad ugu fiican lacag badan ma joogan filaanikan 25 milyan kama badno ama hay kooxda kadib ay qaataan waliba hadda season kan halfkiisa Juve u dheelay qarankii dalka Portugal waati Euro iyo koobkii UEFA Nations League oo la qaaday ciyaartii Spain Campia la keenay marka waxa mudaa Chelsea laakiin sababta ugu faa'iideysan laada ay laftigeeda tartamo badan dheelay laakiin hadda arkay isdiis iyo afarta ciyaartooy ku jooga xal rabaan Chelsea inay gadaan UEFA ku dhagano hadii tilaa wax kale soo qaadan lacagta ku badanaysa hadda 60 milyan oo lacagta waxa laga rabaa euro inay qasnada soo galiyaan marka Chelsea ha sugan inay wax soo qaataan inay wax diraan lama ahane waxay keeni karaan kaliya asla cuniga lagu magacaabo in Wanerio kale hadii uu kooxda uu ka tago ninkii Nuno Madueke toddobaadkan dhamaadkiisa sugan doona wixii ka soo baxay waxay soo bandhigan cunug yar oo Japanese oo difaac dhexe ka dheelo oo 20 sano jir ah lagu magacaabo Kota Takai 5 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda lagu magacaabo Kawasaki Frontale 5 sano uu saxiixay indhayar kale loo keeno Japanese qaranka xitaa uu ciyaara waa nin bright future loo mustaqbal fiican leh Spurs soo qaateen oo center back inkastoo taageerayaasha Spurs ay leeyahay anagoo Champions League ciyaarano Takai ma anfacayeen ciyaartii oo classic Romero siiq uu siiyay aadiyad safiican nakii waxa u jeedaan AC Milan waxay rabaa inaan ka dhaho Marcelo Allegri tradingkiisa shalay bilaabay aada indhaha ugu yo Milan naadi weyn waa shalay tababarkeeda waxa media isku imaad maleekay sidoo kale waxyaabaha isbedel waxa kamid ah ninkii Allegri ahaa ninkii Leo wuxuu ka soo saaray Leo kale akhbaaraad fara badan aan arkay kooxdaas kooxaha kale way igaga duwan tahay aada ula socday tan Al Jazeera daawanay bin sport tababarkeeda hal saac socday beeshkooda galay Leo waxyaabaha laga qoray ana horta wuxuu yiri macalinka shirka jireed ugu horeeyay oo qaaday tii iyo waxyaabaha soo yiri ninkaas soo baxay ma aha horta ciyaartooydu wuxuu kula tiri wuxuu yiri inaad sharafta Milan u ciyaartaan wuxuu yiri wax tartan aan leelina ma laha ceebeen ugu tahay ina miisaanka Milan soo celina ayaan rabnaa sidoo kale Leo oo kale tababarka qaabka ninka uu aqal celinayo qaabka kali ula hadlayo qaabka si jamaaci macna wuxuu diirad u saaraa marka Leo marka Leo oo faraxsan oo qoslay isku qanacsan macalinkan waxa lagu tiriyaa sida hadda football Italia aad loogu qoray macalin inta badan saaxiib la sifiican waxyaabo ka wuxuu yiri كوكي أدونك كور كوكا عندك كوحة أدونك كور قلياها جلسي قلياها المجنة نصف كارتير ولا جلسي لكن أنا كوريس تابو هذا نكوح الجواب وأنا كم يدور يردك سنة كان واحد سبدل دور مرك ألقري ويرهان سنة كان ميلان تي أنا قيمي
waxyar uu levelkeedii ma soo celin karaa markaan fiirino saasaanta aad iyo aad waaba ogay shalay waxaan jaraa'idada xataa Conte wuxuu dhahay Allegri waxa uu soo wada wax yar ma ahan Milan kooxu waxa u baahan farqiga kooxaha macallimiinta aad iyo aad Milan kooxu waxa u baahan kaliya macallin weyn iyo haday isku helaan dhowr ciyaartooy fiican average players isla markiiba kooxaha hore ka soo laabtay kamid yihiin marka Leao uu ceshtay goolaha magnan saxiixda ee sameeyno kuwa macquul ah waxaan qabaa Milan season kan markii horyaalka dhamaada Champions League ku soo laaban karaan tartamayaal la yaabal noqon karaan waliba xataa maadaama Inter iyo Napoli ay ku mashquulaan Champions League waxa laga yaabaa Allegri ciyaartooyda 100% isku toosiyo in uu horyaalka xitaa sida Napoli oo kale kaga faa'iideysto dhankayga waxaan u jeedaa Real Madrid waxay dhan wiilka Endrick ma baxaayo inkastoo dalab inkastoo xalay dalabyo ka soo gaaray Leverkusen iyo Leipzig oo dhahan 60 milyan euro qaata Real wiilkaas ka soo wareejiyay hadda Athletic ee soo xidhaabacaya ninka ma baxaayo Alonso wuxuu cuniga waxa Almino ama inuu dira fiican inkastoo madaxweynaha kooxda uu diiday inuu kaash laakiin waxaan isleeyahay bixitaanka waxa laga wada asli at least lama gaday maahane laakiin macquul in oo amaah lagu dhiibo cuniga waxa dilay xilligii Alonso dhaawac ku soo aaday iyo xogaa aad goolrafo fiican ku jiro Ferran Garcia cuniga Gonzalo Garcia marka Jaredka taas u diiday sababta ila hadda waxa loo fasirinayaa maxay tahay leeyahay gool.com ay qoraysa oo Trossard oo 220 qandaraaskiisa oo Andre Batr dhinaciisa soo fiirlaya marka Trossard la soo hadal qaado wuxuu leeyahay wargeygeerka madaxa iga galay Soomaaliya option kala nootay marka ninka 20 qandaraaskiisa uu dhacay 29 jira Galatasaray u soo bandhigay 20 milyan inay ku qaataan koox kale xataa FC Basel ama ay ku rabaan waxa rabto sidoo kale koox wadanka Talyaaniga waa rabto marka Trossard qorshaha Arteta qayb ma noqon kara wuu ka yahay siyaasadda kooxda waxay tahay horta waxba ka daran nimankan inay keenaan Subamendi hadda dhameeyaan saxiixa kale weyn Guy Carlos markay keenaan ciyaartooy diraan suuqa markuu xirmo ay waxay rabaan markii inay Trossard oo kale la hadlaan at least hal sano kale uu ku daro mid kalena waxa soo bixis warbixin Romano uu daawacay data uu dhahay Arsenal Martinelli cid aan kala hadal ma jirtay ama Al-Nassr ha noqoto ama Bayern ha noqoto ninkan lama taabtaan waay marka laakiin Arsenal waxa ku imaanaa culays horta Martinelli iyo Trossard ma joogayaan hadii Madueke la keenay waxa qasab inuu qof baxo marka priority hada Arsenal waxay siinay horta wax keena kadib ciyaartooy dira ninkan garow u leeyahay waliba Arsenal waa baryaan hada xasuustid horyaalka hada kala barkiis Janaayo dalab badan oo Sacuudi kale lacag badan ku qaadi kara macalinka ku dhago dhaaniyo nala sii joog horyaalka waa lagu moodo qaybaha dambe rag waxa ugu fiicnaa ahay marka laakiin ma mudno Trossard in Arsenal asaas kaga aamusan sidaad muuqato dhankayga bal waxa soo qaadan kara hada fiiriyo sheekooyinka transferka Vlahovic iyo Juventus kiisa hadda ka jiro oo football Italy ka daabacayso Juventus arinkan ku lug leh ninkan wuxuu taagan yahay aniga horta kooxdan ma ka tagayo may idinka mi dareysino 12 milyan isii waxa idinka tagay ma hawa boodaba macnaha wakiilkiisa xaq uu leeyahay ani ma horta waa baxa waa may ina joogo contractiga dhameystaan raba mi dareysinaha 12 isii ani qasaare qayb ma aqaan iyo 6 nooga tag iyo afaran ku siinayna ma jirto marka AC Milan hadda waxa arinka involvement ku leh haday Milan u ballan qaadaa leeyahay dabcan musharaadka iyo Juventus kaga soo tagaa qayb kamid ah ee siinayaan markaas diyaar u yahay garoonka inuu imaado San Siro balse Allegri wuxuu dhahay ninkan uu taagan yahay ani iyo Juventus aan soo kala dhamaan horta nimanka marka soo dhamaado markaas aan ku yahay ninkan Talyaani kale noqoso meesha jooga asiga waa safi ala Vlahovic gudaha Talyaaniga aad iyo qaana Fiorentina ninka 90 milyan euro soo qaateen wariyahan isaga iyo Gonzalo Higuain markii Napoli keenay 90 laga cunay Juve markaas Juve qiine ahayd lacag ay haysteen reeyay markaas waa markii kooxda gacantooda ay ku jireen waana marka la fiiriyo qasaariga Juve ee hadda sida u taal aragnay dhaqaalihi faraha badan ee garan sida Barcelona inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay qaladaadkii Barcelona galeen nimankan galeen hadda wali waxa u maleeyay waxa football Italy ku sii darto warbixinta qayb dambe si akhriyay beejka Milan waxay dhahan 7 milyan ku siinayna dhahan sanadkii asna wuxuu dhahay Juventus 5 milyan igu soo diray 12 anima ka tagay taagan sabtina buuxiyo wallahi ninka saaxiibka amal miya wallahi caadi ma digri amal shanti iyo macfid barto wajada ninkii onaanaha oo qoslayo shalay gaarigiisa oo barka ku yimid transfer nin saaran iyo nin Monaco dalbanaysa macnaha nin kooxda leaderka ah oo waaweynka isu malayaaba targetna 3 milyan ayaa ninkan hadda kooxda Monaco ay ka dalbanaysa email oo kale waxay qoraysaa ninkan onaana inuu san bixinin oo ciyaareed karta Monaco ku soo qaatay fasaxiisa iyo iskiisaba meesha taajiriinta ay tagaan wixii lacagta cadinta sanadka xagga lagu soo qaatay laakiin lacagta wuxuu ka helay markuu u tagay Mr. Traore la kaasada lacag rabaa ku soo dhibay allo iyo ku xiran kaas onaana sanadkii waa uu sameeyay qalad uu sameeyay sanadkan dulqaad kala Manchester uu yeelan kartaa waa u yeelan karaan ninka waxa ka fahmi kartaa hore Manchester fariin ugu diray Messi waa ninkan wuxuu dhaanaya dalxiiska laga qasinay kooxda inay jooga in kala la cadeeyo waa la soo jawaab way dalxiiska soo dhameesto waa imaada markii
taas haddii laga aamuso maxay ka dhiganta macnaha ma lagu diri karo waa ninka marka shaqadiisii wadana aamusnaanta qayb kamid ah jawaabta taas oo u qaatay waa imaaday waliba xataa waxa lagu bogaadinaa on time oo ahaa asiga iyo Matheus Cunha sideed joogeen balil kafeey marka adii barra soo maraysiin tababarka Manchester oo joogan kan marka ninkaas kale ma la diri karaa ma la diri karo aad iyo aad qaybaha ugu dambeeya soo gaaray hal qodob Ibrahim waxa uu jeedaa ninkii Ibrahim Konate sheeko yar akhrinayay oo William bin Job ismiyay oo qoray ninkaas khabiir wala man buuni ma been yakun qatar waa Brazil iyo Romana Ingiriiska waa aada marka waxyaabaha uu qoray oo soo daabacay saaka waxa kamid ah ninkii Ibrahim Konate ahaa mujaamalo wada waa adu hadda maanta ku dhashay Skriid leemo الرحمن عليه ده وحالي إلا إيو ماي إلا إيو جولاي ما أنت عمرنا شن جيميل ليفربول قدرت وكيف إيه يعني نيو ميس كود هذا كأسوي مانو أن كود هذا إنه كستيشن كيش كورنتا يشروديه إني أنا شروديه هنا مركز إلى إبراهيم كوناتي اللي يسوي جوابه مقطع اللي هو صح كجرا جيميل ده ما أركن هذا أركي هو أنا مدنتي ده مهلي ساسوا معناه مدنتي معناها وريها مركز قال حكوسي رأسي معناها أنا جوها يستا أوفر نيجا بدل كذا إيش بندكتين أوفر كلام إيهسي marka ma mudaa in laga xaqeeyo way tahay ninkan sinu isku dabaalanaya aniga waxa ii muuqato in Liverpool ay ka tirtaan Ibrahim Konate oo difaac kale hadda ma guuhay kale ay soo qaataan haduu qandaraas ku ninka diidane inay kaashaan inuu baxay ilama eko Liverpool big loss kale ku tahay oo ciyaaryahan muhiim ah inuu season ka dambe lumin doona 25 jir oo waliba Real Madrid inuu aadayna muuqato Real waxa marka Liverpool soo dhigtaan albaabka waxaa jira muuqato dumarka raali ahaay waa laga dhaxeelaya jiniyarka hadna Real Madrid ka dhaxeelayso rag laga dhaxeelay waa la arkay balay waa rag baa laga dhaxeelaya hadda koraa shirkada laga dhaxeelay saaxiibkee marka muda Real gacan saddexaad inay ku leedahay meesha way batahay sida muuqato waxaan isleeyahay season kan Liverpool nin kale muhiim ah ay lumin doonaan dhankeyga ninkii Jadon Sancho barnaamijka bilowgii soo qaadatay Juventus hadda waxay u bandhigeen ninkan 6 milyan oo euro inuu qaato 10 milyan ilaa 15 milyan inta u dhaxayso Manchester ka qaata hadii oo la dhaho canshuurta xataa lagu daro 15 milyan waaye laakiin lacagta nadiifka Manchester ka qaata 10 waaye Juve waxay dhan 6 qabsadeen ordo ku soo baxaa marka waa 6 milyan waa ku filan Jadon xataa 6 milyan ma u qalma 5 in la sii eedo 1 milyan shaqeysal dhoo macna fiican shaqeysal iyo garnaajo aan waxa qaba in lagu beerfasho u baahan yahay sax oga yar wuxuu dhamaa Rashford iyo kan garnaajo iyo inkastoo uu u badan yahay dhanka social media haddana Talyaaniga inuu idin kula hadlano ama yana Talyaaniga waxaas laga yaqaan وانا كوسو عن كرا سفي عن كل جواب جبنا سو قارني عاو حجر كلام والكاب كيس ما فينا الك كل لما دقيقة عمل رودي من جالسي فرماس تياغا سيلفا كوحيس يورا وجهها مرة بالشدو على أفرتين جرواي ومرينا مرة experience مرة قاركود كوبدا عكتا قيبة كتها جوش عاو كل قسم حلقة في الكرة عيار كلو أدق واي ولي فلمونيس الدفاعي كنت شنا يعني أفرتين جرو تياغا سيلفا كدوانيسي يقولايا وأفرتين إيو أفرق سيلويا ملاس أسيغانا سغاشان يتدبض إلا عدو عيارويا لولا سنين تدبض كل قدام الشنكورن كميد shabaqooda lama gaarin inkastoo hadda Flaminius Martinelli kale uu ka qabo ajaalooyin uu ka qabo ciyaartoy muhiim ka maqan yihiin haddana waxa qaba Brazil kooxdaas Delap iyo Colwill ka maqan labadana muhiim ciyaartan sidii Chelsea Palmeiras ugu dhibtoodana kale ugu dhibsanaa qaba hadii tight game laba hal Chelsea soo baxaysa aslee inkastoo ninkii ahay Joy Pedro Jata Garasho qabsado buuqa sawaxanka sacabka markuu meeshu mar afar Chelsea daba socoto dukaanku galaw ninkii isla markii wuxuu noqday fan favorite noqdaba marka caawo kale ninkaas oo dabshito oo kooxda finaal soo saaray Jackson kii oo kalsoon daro ku dhacday iyo caawo kale marka haduu finaal kooxda soo saaro waxaan isleeyahay line up kiisa wuxuu noqonaa joogto noqonaa jaa waliba ninka ma bacabsanayo ciyaartoy Chelsea markay imaadaan barashada saaran qaarkood waa dhuntaan waa cabsadaan banaanku uu taagan ninkan wargeysa xataa maanta saa ku qorna u dhahay halkan waxa uu imaaday inaan isla markiiba koob kooxda kula guuleysto marka waxa waay waa dhirtigeeda waa liskaas waa laga waabsama muddo nin waxa jiri jiray Chelsea hadda kor ay soo gateen kismani dhihi jiray ma warqaweynihi kisman labaatan sagaal gool lagu soo dhaliyay record ku qaaday Chelsea ma keen 28 gool gool u dhaliyo marka macnaha waa loo waabsana marka ninka hadda waa loo waabsan yahay waabsigiisa marka inuu ku sii wado wala Brazil oo talent aad u fiican waay kulli akhbaraadka wark dhankeyga waxa u jeedaa breaking news oo Ramana soo daabacay Pierre Emerick Aubameyang qandaraaska waxa ka dhacay Al-Qadisiya waa fasaxantay dhaheen laba sano waa qaatay xiisa macnaha wixiis ma soo reebanaymo ma wax laga reebanay ma leh free waay qandaraas lagu masiinaa marka qodobkaas dhankii ugu dambeeyay safiican kulli waa arki doonaa inta sarabna inaan ku soo gabagabaysan barnaamijkeeni nadiirada maanta Ustaz Zakariya Cabdi Maxamed oo aad iga qayb qaatay saaxiibkii barre oo dhanka farsamada iyo kaamirada naga saaciday iyo adikaba waa idinkaga mahad celinayna daawadayaal mahadsanideen